waxay carab badan ka taagan tahay dalka Brazil kadib markii xogta gaarka ah ee gabar 10 sano jir ah la shaaciyay. Gabadhaas waxay dhibane u ahayd kufsi loo geystay. Magaceeda ayaa lagu baahiyay baraha bulshada. Waxaa arinta sameeyay qof u ololeeya in ilmaha uurka ku jira aan la soo xaqin. Ujeedaduna waxay ahayd in gabadhaas yar laga hor istaago in ay ilmaha iska soo tuurto. kadib xogta lagu baahiyay baraha bulshada waxaa isu soo baxay dad ka soo horjeeda ilma iska soo xaqida oo isugu tagay isbitaalka ilmaha looga soo tuurayay gabadhan. inantan yar ayaa uurka qaaday kadib markii la kufsaday. booliska waxay arbacadii qabteen ninka looga shakisan yahay in uu kufsiga gabadha kula kacay. kiiskan wuxuu sababay xanaaq iyo caro ku baahday dalka Brazil guud ahaan. kadibna garsoore maxkamadeed ayaa amray in Facebooka, Google-ka iyo Twitter-ka ay tiraan macluumaadka gabadha yar ee 10 sano jirka ah. garsoore Samuel Miranda wuxuu go'aamiyay in shirkadahaas ay haystaan 24 saacadood oo xogta ay uga saaraan barahooda bulshada, haddii kalena waxay wajihi doonaan ganaax gaaraya $9,000 maalinkiiba. Brazil waxay leedahay xeerar adag oo diidaya in ilmaha uurka ku jira la soo tuuro, balse marka kufsi lagu qaado waa la ogol yahay, gaar ahaan marka nolosha hooyada ay halis ku jirto. waa xilliga ay jirto xaalad dhif ah oo ka hortagaysa korriimada maskaxda iyo jirka. inkastoo gabadha loo fasaxay in ay ilmaha iska soo tuurto, haddana dadka arrintan ka soo horjeeda waxay isku dayeen in ay isu hortaagaan in isbitaalka uu qabto shaqadaas, waxayna isku soo bax qaylo iyo buuq badan ku qabteen isbitaalka hortiisa. waxay ku qaylanayeen shaqaalaha isbitaalka oo ay ku tilmaameen dilaayaal, waxayna mar isku dayeen in ay gudaha u galaan, balse waxaa kala eriyay ciidanka amniga. gabadhan waxaa si qarsoodi ah lagu geliyay isbitaalka, waxaana lagu qariyay buudka dambe ee gaari yar. waxaa isbitaalka laga geliyay albaab qarsoodi ah, sida laga soo xigtay dadka u ololeeya ilmo iska soo xaqida. wariyaha arrimaha BBC-da ee Koonfur America, Katy Watson, waxay sheegtay in ay u muuqato in xogta gaarka ah ee gabadha ay markii hore baahisay haweeneyda xagjirka ah ee midagta fog laguna magacaabo Sarah Geronimo, taa oo lagu naanayso magaca caanka ah ee Sarah Winter. weli ma cadda in Sarah lagu oogi doono dacwad la xiriirta magaca gabadha ay shaacisay, balse qoborada sharciga ayaa BBC-da Brazil u sheegay in ay suurtagal tahay in haweeneydan ay wajahdo dacwad la xiriirta kicinta ay ka dhalatay qalalaaso. Mrs. Geronimo waa mid ka mid ah hogaamiyaasha urur lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa OS 300 Brazil, kaas oo ah xagjir u janjeera dhanka midagta fog ee taageera madaxweyne Bolsonaro. waxaa si kooban loo xiray bishii Juun kadib markii ay bilowday dhaqdhaqaaq ka dhanka ah dimuqraadiyadda oo ka dhacay magaalada Brasilia, halkaas oo ay ku hogaamisay dad ku dibad baxay maxkamadda sare.